noqoto mid laga dhameeyo maanta runtii arintaan u soo babaxnay maanta taariikh ahaan waa 15 December waa maalinta loogu talagalay maalinta nadaafadda caasimada waxaan rajaynaynaa inaan daa'imi doono u fulin doono sida aan ugu talagalay anoo Ilaahay la kaashana subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay maanta degmada Garowe waa hadashay waxaan rajaynaynaa in inta wasi dhawaadaan saawabtihiin maanta magaalada Garowe waxa ka shaqeynaya dad dhowr kun gaaraya 5 kun 6 kun oo qof iyo dhammaan gaadiidka ay haysteen iyagoo isxilqaan ku shaqeynaya iyo wadaninimo waxaan rajaynayaa inaan dhammaanteen gacanta isqabsano una dareerno inaanu ka shaqeyno magaaladeena maanta halkaan hadal badan uma baahna waa shaqo iyo gacan qabsi waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin waa tusaale wanaagsan shaqada maanta meesha ka muuqato iyo diyaar garowgaani waa maalin shaqo in la nadiifiyo oo qashinka la iska qaado dhirta la beero magaalada la cagaariyo la qurxiyo caafimaadkeena iyo quruxdeena iyo horumarkeena iyo dawladnimadeena ay saldhig u tahay dad aan qashinka iska qaadan karin dawladna ma noqon karaan marka hawshan waa bogaadinaya waa hawl tusaale u noqon karta gobolada kale oo dhan dhamaanna waxaan runtii iyadagana aan faraynaa ama ka codsanaynaa gudoomiyaasha gobolada iyo madaxda kale ee degmooyinka gobolada kale inay arrintan ku daydaan oo la nadiifiyo oo dhirta la beero dhir in la beero qashinka la iska qaado magaalada la qurxiyo nolosheena ay saldhig u tahay arrintan waa soo dhaweynaynaa waa kan mahadinaynaa dhammaan intii ka qayb qaatay barnaamijkan isku tashiga kambaniyada ka qayb qaatay shacabka ka qayb qaatay sidii loogu diyaar garoobay waa bogaadinaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda federaalka duqa caasimada ku-xigeenka duqa xogayaha dawladda hoose dhammaan waaxaha dawladda hoose iyo shaqaalaha saxaafadda dhammaan shacabka weyn ballaaran oo ka soo qayb galay maalinta nadaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta ay bishu tahay 15 bisha 12 2022 waa maalin taariikhi ah waa maalintii la daahfurayay nadaafadda waana maalin Puntland oo dhan u ah maalin taariikhda u gasha marka u horeysa Ilaahay baa mahad leh sida culimadu sheegtayba nadaafaddu waa waxa ugu muhiimsan weey intuu qashinku ku jiro baa caafimaadna markaa ku jiraysa haddii rabbeedmo waxaan leenahay nadaafadda ha la ilaaliyo ha la isku tashado bulshadan soo baxday oo u diyaar garowday inay ku shaqeyso si voluntary ana waxaan leenahay waa mahadsantihiin dhammaan gudoomiyaasha degmada ee gobolka Nugaalna waxaa la farayaa inay ku daydaan ku-dayashada mudan oo iyaguna ay bilaabaan nadaafadda waa ogtihiin oo geedi caanalaha socda iyadana sidaas ka ballaaran insha Allah haddii rabbeedmo in looga soo qayb qaato